بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين ومر kale iyo madasheeni baraaqoonta iyo cashiradeen imtixaanaha ee ku saabsanaa programka QuickBook inagoo ku soo sameynay company-ga loo yaqaano Damal Construction Company ee dhismaha waxaan halkii ka sii wadi doonaa hadii la cashiradeen imtixaanaha inagoo 7 cashar ka soo diyaarinay casharkan wuxuu noqon doonaa insha Allah taala casharkii wuxuu noqon doonaa casharkii 8aad waxaan doonayaa marka intaan casharka bilaabin inaan yaro hordhac sameeyo fiidiyoyada marka la daawanayo inta badan waxa laga yaabaa in ama mobile aad ka daawatid ama aad computer ka daawatid in resolution-ku ama aragtida muxuu ahaa fiidiyoogaasi uu ka yar liito marka si aad u hagaajisan lahayd bal maanta doonayaa inaan yaro hordhac ka sameeyo aad tuso aan soo kiciyo tusaale ahaan marka programka marka taas soo gasho marka tusaale ahaan computer ka daawanayso waxaad sameynaysaa marka halka kaasoo kale aad gushinaysaa tusaale ahaan shirkadda dhismaha macnaheedu fiidiyogii inagu u baahanahay ama fiidiyooga doonaysa inaad daawataad markaa gujinaysaa marka tana ku soo baxaysa marka ku soo baxdo tusaale ahaan fiidiyoyada kii aad doonto ayaad saasoo kale tusaale kaasoo kale cashkaasoo kale gujinaynaa marka fiidiyooga sidoo kale kugu soo baxo waxa laga yaabaa inaad tusaale ahaan aad arki weydo marka halkaas ay setting ku qorantay baad ku dhufanaysaa programka QuickBook inagoo ku xalinay waxaad tegaysaa markaa tusaale ahaan fiidiyooga soo yar kordhisanaya in yarba soo yar tusinaya saan codkii soo maqlo waxaan leeyahay halkaas setting ku qorantay baad ku dhufanaysaa halkaas setting ku daaro marka fiidiyooga halkaas setting aad ku dhufanaysaa halkaa markaa resolution-ka halkaasi waa inay kugu noqotaa inaad 720 waa inay halkaasi kugu noqotaa si aad u aragto tusaale ahaan imika haddaan ku yar celiyo mar kale haddaan ku yar celiyo halkaasaad ku dhufanaysaa marka 720 waa inay ku taagnaata hadday kuwa kale kuu taagnato tusaale ahaan haddaan kaas kale ku dhufto cod waxay noqonaysaa wax shucaaca buu yeelanaya marka waxaan doonayaa markaa shucaaca waad arkaysaa iminka shucaaca buu leeyahay si aad u aragtaan markaa aan ku celiyo aan mar labaad ku celiyo halkaasaad ku dhufanaysaa waxaad leedahay halkaa ku dhufo quality-ga kadibna 720 marka halkaa waad arkaysaa inuu clear yahay inuu clear yahay waad arkaysaa marka waxaan aad idinka codsanayaa inaad resolution-ka fiidiyoyada iska hagaajisaan oo halkaa haddii setting-kaadoo tegaya allahumma salli calaa maxamed oo halkaa quality-gaasi waa inuu 720 iyo wixii ka sarreeya noqdaa waa inaanu ka hooseyn hadduu ka hooseeyo waxba ka arkimaysid fiidiyooga marka intaasaan doonayay inaan idin tuso si aad u hagaajisataan marka haddaan mar labaad ku celiyo waa ka iminka clear marka si fiican baad arkaysaa soo maaratid si fiican baad arkaysaa waa clear halkaa markaa intaasaan doonayaa inaan isku baraarujiyo insha allahu tacaala marka waxaan doonayaa cashirkeena maanta cashirkii 8aad inaan halkan ku duuba haddii la idhaahdo waxaynoo kasoo duubnay 7 cashar oo taxano ahaa oo ku saabsanaa programka QuickBook khaasatan inagoo sheegnay inaan ku xalin doono programkan haddii la idhaahdo qaybta service-ka loo yaqaano inagoo company la idhaahdo Damal Construction Company soo abuuray 7 cashar hore kasoo diyaarin markaan gudagalo cashirkeenan 8aad aan soo kiciyo programka waxaan leeyahay markaa haddaan ku yaro horeeyo halkaa report ku qoran tahay waxaan eegayaa bal intii aan soo sameeyey wixii aan shaqo haynay bal inay wax iska bedeleen halkii reportka halkii balance sheet-ka company-ga marka tusaale ahaan company baan tegayaa waan la soo raacaya halkaasaan ku dhufanaya ku qoran tahay balance sheet standard marka ku dhufto tanaa yaro weynaysto balance sheet standardka markaa tanoo kale haddaan iyadana all ka dhigo sana wada arko waxaa leeyahay marka halkaa waxay noogu qoran Damal Construction balance sheet-keedii all transaction marka asset-keeda iyo liability-geeda labaduba waa 00 marka asset-ka iyo liability-ga runtii ma doonayaan inaan halkan ku sharaxo oo waxaan rajaynayaa in asset iyo liability iyo equity iyo waxay yihiin oo dhan inay xisaabiyaasha ama ardayda fiilkan accounting ku dhex jira inay wax badan ka garanayaan inagu waxaan doonaynaa inaan si guud wixii aan idin tuso haddii la idhaahdo programkan idinkoo kuliba basic-ga wax badan ka fahansan ciddii aan fahansanayna runtii waxaan kula talinayaa inay financial koorsooyinka financial course-ka inay iska soo dhisaan ay soo daawadaan oo base-ka soo dhisaan marka halkaa waxaad arkaysaa inay 00 tahay wax aynu qabanayna aanay jirin
marka wixii aanu sameynayno dhan waxay ahayd inaynu kambaniga abuurno kambaniga inaynu xisaabtiisii dhisno maanta waxaan doonayaa markaa cashirkeena 8 insha allahu tacaala inaan shaqadii ugu horreysay bilaabo shaqada ugu horreysay bilaabanayna waxay noqonaysaa inaynu estimation sameyno ama qiimeyn aynu sameyno oo runtii inta badan waxaynu la soconaa marka kambaniga dhismuhu oo contractka dhismaha guryaha qaadanayo tallaabada ugu horeysa uu sameeyaa waxa weeye guriga marka lagu keeno clients ku yimaado macmiilku waxaad sameynaysaa inaad qiimeyn samayso guud qiimeynta markaad samayso qofkii clientga baad la wadaagaysa waxaad gurigii adii keentay waxaan kugu dhisaya intaasaan kugu dhisaya marka qiimeynta tallaabada ugu horeysa qiimeynta weeyaan qiimeyntu marka qiimeynta seebeen u sameynayna waxaan leenahay marka halka customer ku qoran tahay customers ayaan ku dhufanayaa waxaan tagayaa halka ay ku qoran tahay create estimate saan qiimeyn guud u sameeyo create estimate iska markaan ku dhufto waxaan leeyahay marka halka ay ku qoran tahay customer job waxaan gashanayaa guryihii aan soo abuurnay kii markaa aan doonaynay inaynu maanta qadaraaskiisa qaadano marka waxaan leeyahay guriga koowaad oo kale qadaraaskiisa qaadanayna halka class ku qoran tahayna isla gurigii koowaad baan geenayaa halka ay ku qorantay estimate numberka waxa muhiima kulba estimationka sameynayso ku yahay inaad halka geliso inagu maanta kii koowaad baan bilaabaynaa waan leenahay intaa markaan sameeyo halkan waxaan ku buuxinayaa markaa description baan ku buuxinayaa item description quantity rate amount allahumma salli ala muhammad mark up class iyo total intaasaan doonaya intii muhiimka ahayd inaan ku buuxiyo markaa tusaale ahaan waxaa lagaa doonaya markaa inay dabcan kuu diyaarsanaato wixii macluumaada aad ku buuxinayso halkaa inagu waxaynu ka bilaabaynaa markaa waxaynu sameynaynaa alaabtii baynu markaa kharashkii alaabta waxaynu usoo bixinay ayaynu ku guraynaa halkaa marka waxa ugu horeeya waxaan leeyahay jaajuurka tusaale ahaan waxay noo gelayaa guriga waxaanu 6 kilomitir bay noo gelaya 5 kilomitir bay noo gelaya 5 kilomitir markaa qiimihiisa waa inaynu markaa qiimihiisana halkaa markaa quantity ay ku qoran tahay iyo rate labadaas waa muhiim inaad buuxisaa halka amountigana isaga toos u buuxinaya marka ka mark up account iskaga teginaa class ka marka gurigii automatic iska soo qabsanaya total kana isaga ku sameynaya marka labada marka isku dhufato waxay noqonaysaa marka $1500 waxa kale ku xigsiinayaa jiingad marka alaabtii waxaan doonay guriga gelaysay inaan midmid u tiriyo jiingada tusaale ahaan iyadana waxaan nidhi 1000 mid bay noo gelaya marka iyada waxa la inaga soo siiyaa inta badan $6 waayahay waxa kale ku xigsiinayaa wax la yiraahdo marmarka labadiisii nooc marka kii 40 by 40 ga haba ku horeysiinaya waxaan geliyay marka waxaan leeyahay 1550 meter square baa gelaya isaga waxa la inaga soo siiyaa $5 waxaan ku xigsiinaya marmarkii kale 40 by 30 by 20 ga taagaha isagana waxa la tusaale 100 meter square bay noo gelaya meter square kii waxa la inaga soo siiyaa $3 baa la inaga soo siiyaa waxa kale oo iyada gelinayaa rinjiga labadiisii nooc rinjiga galaanka igu horeysay rinjiga galaanka waxa la marka waxa gelaya 10 xabo waad ka badin kartaa tirooyinka marka kulliba dee wixii gelaya aad garanaya qiimeyntaada laakiin inagu waa tusaale waxa la 10 xabo xabadii waxa laga soo siiyaa ala xabad waxa laga soo siiyaa $13 waayo waxa kale oo gelinaya rinji tennis marka alaabtii guriga gelaysay kulliba aad garanaya waa inaad shay ugu gurtaa kaana tusaale ahaan waxa 20 xabo ayay noo gelaya kaasoo yar badsanayna 20 ka marka waxaan leenahay ala xabo waxa laga soo siiyaa $40 ayaa laga soo siiyaa marka kaasoo yar qaadi waxa leeyahay marka waxa kale oo geliya waxa loo yaqaan silig saafi ama siligii caadiga cadaanka isaga siligii saafiga isaga waxa la tusaale 100 mid baa gelaya 100 ka mid isaga waa maxay waa $6 baa laga soo siiyaa waayahay waxa kale oo aan leeyahay marka chipsinka isagana waxa noo gelaya waxa 100 meter square bay isaga noo gelaya tusaale ahaan isagana $5 baa laga soo siiyaa way waxa kale oo ii gelaya ciid wax loo yaqaan ciid marka waxa niis waa niista waxa nidhi iyadana waxa noo gelaysaa konton load oo kale tusaale ahaan guriga guri weyn waxa leeyahay marka loadkii waxa laga soo siiyaa $20 baa laga soo siiyaa marka runtii kulliba qiimo wadaada garanaya shay wali wuxuu kugu taagan yahay anigu iska tusaale waxaan ku xigsiinaya biyo guriga waxa noo gelaya aan nidhi 100 waxa noo gelaya tusaale ahaan 100 foosto foostadii waxa laga soo siiyaa 0.3 foostadii waxa laga soo siiyaa 0.3 waxa kale guriga gelinaya aan gelaya waxa loo yaqaan nuurad waa maxay waa nuurada cadaanka ee guriga istamarka loogu horeysiyo iyadana waxaan leeyahay tusaale waxa gelaya 100 kiisho kala gelaya iyada inta badan
waa iska jabantay $3 baa laga soo siiyaa $3 baa laga soo siiyaa waxa geliya tusaale ahaan wax kale aynu gelinaya waa September marka laba nooc baynu September kana ka dhiganaa September 70 mid baa kaga geliya ka galaaniska si wax laga soo siiyaa $6 waxa kale oo geliya September teeniska marka alaabtaas oo dhan dabcan waa soo wada abuurtay sidii aan soo abuurtay oo garanaysaan kaana tusaale ahaan waxaan idhaa waxa geliya galaaniska soo kale waxa geliya konton mid baa ka soo qaad inay konton mid baa geliya ka soo qaad marka isaga konton ka mid baa ka yara dad doonto ka yare waxaan leenahay waxa geliya 10 xabo oo kale inuu ka dhigan ama 20 xabo marka isaga waxaan ku dhufanaa $25 tusaale ahaan $25 waxaan leeyahay marka haddaan doonaan yareeyo si uu yaraato 10 mid ka dhig waxaan leeyahay marka waxa kale igu xigaya loox labadiisa qaybood loox ka cadaanka baan ugu horeysiinayaa isaga waxa ii gelaya baan idhi cadaanka waxa ii gelaya 25 mid baa ii gelaya marka cadaanka waxa la siiyaa $13 baa la siiyaa isaga waayahay waxa kale geliya loox casaana waxa ii gelaya isagana waxa ii gelaya baan idhi tusaale ahaan looxa casaanka waxa ii gelaya 50 mid tusaale ahaan waa tusaale isaga uu ka qaalisay $20 meelaas la siiyaa $20 baa la siiyaa waayahay waxa kale ku xigsiinaya wax loo yaqaan qasabado marka tusaale ahaan aan ku celiyo qasabadahaas tusaale ahaan ku guriga inuu hadhow biyo gelinta loo sameeyo tusaale ahaan isaga waxaan leenahay marka waxaan leenahay waxay noo gelaya 10 xabo kale 10 ka xabo xabadiiba $5 baa laga soo siiyaa waayo waxa kale ku xigsiinaya wax loo yaqaan Bollywoodkaas isaga waxay noo gelaya 20 xabo marka isaga tusaale ahaan Bollywoodka waxa laga soo siiyaa isaga $6 kale laga soo siiyaa waayahay waxa kale noo gelaya wax loo yaqaan masaabiir marka masaabiirta 20 kartoon baa gelaya ama ka badan kulliga ka badanaysa 0.2 ama 0.3 baa laga soo siiyaa 0.3 baa laga soo siiyaa marka halka waxa igu dhamaaday alaabtii marka wixii kale aan alaabta ka tago kulliba de qofku isaga garanaya guriga waxa gelaya wixii alaabta ka tagay kale kulliba isaga qofku gashanaya inagu inta waa iska tusaaloon inta markii kharashkii alaabtii guriga gelisay marka inta ku dhameeyo halkan waxa ku xigsiinaya kharashka gacanta wax loo yaqaan guriga maxaa gacantana maxaa gelaya leeyahay way inta badan estimation marka la sameeyo labada kharashba kharashka gacanta iyo kharashka guriga iyo kharashka alaabta labadooda la isku dalacay iyo wixii qofku marka saaranayo faa'iido si guud baa marka loogu wada estimation loo sameeyaa marka inagu faa'iido kala gaar saarmayna laakiin alaabtaynu yaro kordhinayna si aan hadhow guriga faa'iido uga helo waxaan leenahay marka waxaan ugu horeysiinayaa foreman-ku isagu waa ninka guriga qandaraasaya wada waxaan leenahay marka foreman-kaas sidaan u buuxinaya marka waxaan u buuxinaya halka quantity ay ku qoran tahay waxaan gelinayaa inta maalmood ee gurigaas soconaya tusaale ahaan 3 cisho soconaya halka rate-ka ku qoran tahay waxaan gelinayaa maalintiiba ninkaas wuxuu inoogu shaqeynaya marka waxaan leeyahay rate-kii waxaan leeyahay dayskii uu guriga soconay oo lagu dhiftay rate-kii ayay noqonaysaa marka halka iyadana waxa xusid mudan foreman-ku inta waxa laga yaabaa inuu qof ku laabtan noqdo laakiin wastaadka iyo nijaarka inay intaas noqdaan baa laga yaabaa dhowr qof ay noqdaan dhamel noqdaan ama 5 qof ama 6 qof meelaha ku noqdaan ama ka badan oo maalintii 10 wastaad geliso inagu laakiin tusaale ahaan midhow ka soo qaadanaa hadhow haddii ay bataan runtii waxaad sameynaysaa saan marka tusaale wastaad oo kale imika hal wastaad baan gelinayaa wastaadka waxa leeyahay marka isaguna 30 cisho inoo shaqeynaya maalintii $20 buu ku shaqeynaya maalintii $20 tusaale ahaan marka haddii tusaale wastaad kale kugu galo haddana wastaad kale ka qoraysaa wastaad kale marka halka qorto haddana halka waxa leeyahay 30 cisho shaqeynaya saas aad qoraysaa marka wastaadada maadaama dhow yihiin marka inagu markaas ma ka soo qaadana hadhow daawa garanaya inta wastaad ay kugu gelisay guriga inagu waa tusaale kani waxa leeyahay nijaarkuna isaguna waa la mid nijaarkuna waa la mid isagana mid uma ka soo qaadaya laakiin hadhow haddii aad u baahato isagana waad buuxin kartaa kaana waxa leeyahay 30 ayuu isna inoo shaqeynaya 30 cisho maalintii isna 20 buu qaataa waxay noogu xigayaa ninka kuuliga la yiraahdo ee guriga ka shaqeeya isaguna dhowr buu noqon karaa laakiin isagana mid qurban ka soo qaadaya 30 cisho isagu inoo shaqeynaya maalintii waxa laga yaabaa $10 inuu qaato ama wax ka yaraato aduu wixii uu qaato halkaas gelinaysaa waxa kaloo igu xiga wax loo yaqaano marmarle marka waxa iga xasuusinaya marmarlahaasi inaanu isagu 30 cisho bay inoo shaqeynin
laakiin waxa laga yaabaa sub contract inaad sii siiso oo isaga laga yaabo 5 cisho inuu ku shaqeeyo ugu badnaan waxa la tusaale ahaan hadhow sida sub contract loo siinayno arki doonaa imika si guud u halka lagu darsanaya waxa la markaa halka 5 cisho isugu noo shaqeynaya halka 7 aan 30 cisho guriga soconaya isagu 5 cisho noo shaqeynaya maalintii waxa laga yaabaa $100 inuu ugu shaqeeyo marka isaga waxa laga yaabaa mar walba inaan guriga dhex joogin oo maalinta loo baahdo yimaado rinjiiluhuna waa la mid ninka rinjiilaha isagana waa la mid isaga waxa laga yaabaa 7 cisho inuu rinjigu mariyo ama ilaa 10 cisho meelaha mariyo maalintii $100 inuu ugu shaqeynaya waxa kale ku jira waxa loo yaqaan binalaab waxa laga yaabaa isaga laftiisu inaanu ka badan maalmaha guriga la shubayo iyo haddii guriga sabad loo xirayo intaas uma isagu laga yaabaa inuu nala joogo marka isaga laftiisa 5 cisho ka dhiganaa 5 cisho ka dhiganaa maalintiisna waxa laga yaabaa in $100 qaato waayahay waxa kaloo igu xiga qaldawale ninka loo yaqaano qaldawalaha ama ninka qaldada inoo qoosheeya isagana waxa la 30 beri u shaqeynaya 30 beri maalintiiba waxa la siiyaa inta badan $12 baa la siiyaa ama $10 adoo inta u dhaxaysa meelahaas qaadanaya waxa la markaa waxaan kusoo gabagabeynaa ninka la yiraahdo ilaali waa ninka guriga ilaalinaya guriga waashmaanka ka ama rusheynaya ama wixii saas oo dhan isagu qaabilsan waxa la markaa shaqo hoosaadkaas oo dhan isagu qaabilsan marka waxa la isagu 3 cisho inoo shaqeynaya maalintiiba waxa laga yaabaa in $5 aynu siino ama meelaha aynu siino marka waxa leeyahay guud ahaan labadii kharash ba saasaan u geliyay marka waxa muhiim ah halka custom ay ku qoran tahay custom job inaad guriga halka ka soo doorato isla markaana halka class ku qoran tahay isla guriga ka soo doorato halka tusaale ahaan date-ka waa muhiim date-ka maalinta aad buuxinayso information kaysana halka inaad buuxiso estimation ka inaad kala saarto estimation-kii koobaad kii labaad halka aad u geysato kulli kuwa dambe isaga automatic soo qabanaya inta marka item-ka description-ka isaga muhiim maaha quantity-ga iyo rate-kaas intaas waa muhiim halka amount-ga isaga automatic soo qabsanaya markup-ka isaga imika uma baahnin class-kana aniga class kale ka soo akhrisanaya marka tusaale ahaan halka class-ka kale hadaad qaladood class kale ka dhigto halkan idin sheegaya faa'iidada ay leedahay class-ku leeyahay faa'iido leeyahay inuu guriga ay ku kala saarnaadaan tusaale ahaan imika hadaan halka soo furo halka guriga labaad ka dhigo hadda marka save gareynaya uu diidaya wuxuu oranaya halkan labadan isma waafaqsana marka muhiimadu waxa weeye inaad kala ilaaliso guriyihii iyo midba mid kaaga dhicin halkaasna tusaale waa totalkii guud marka guriga waxaan ku qandaraasnay gacantiisii iyo alaabtiisii waxaan ku qandaraasnay 18,891 kaas ayaan ku qandaraasnay marka waxaan sameeynaya dhamaan waxaas oo markaad iska hubiso waxaad leedahay save and close baad ku dhufanaysaa save and close markaad ku dhufato saasuu inoogu qaatay marka waxaan eegayaa markaa halkee markaa wax saameynaya halkuu saameyn ku yeelanaya halkee uu saameyn ku yeelanaya tusaale ahaan waxaan idhi halkaa ku qorantay report baan tegayaa bal waxaan eegayaa inuu company-geeni xisaabtiisii ama balance sheet-kiisii wax ka bedelay waan la soo raacayaa waxaan leeyahay markaa taasaan ku dhufanaya marka tanna waan yaro weynaysanaya refresh baan leeyahay saan u arko marka saad u aragtaan assetkii iyo liability-gii labadiiba waa zero waxba halkaa may soo gelin sababtu waa maxay waxaa niga xasuusina transaction-ka aynu sameynay loo yaqaano estimation-kaasi inaanu non posting transaction baa la idhaha isagu meel la saameyn kuma yeesho waayo waa wax guud oo si guud loo sameeyo isagu systemkeena meel waxba kama bedelayo markaad intaas samayso tallaabada labaad qaadaysa waxa weeye dabcan markaad estimation ka samaysato qofkii client-ga macmiilka ahaa ayaad xisaabtiisii u diraysaa oo oranaysaa marka xisaabtaadii gurigaaga intaasu maanta intaasu qiimihiisa noqday intaasaan kugu dhisay waad oranaysaa marka hadhow isagaa laga yaabaa inuu ama dee hadal ka keeno ama wax ku kordhiyo ama wax ka yareeyo ama intaa kula qaato marka tusaale ahaan sideebaad ugu dallacaysaa marka customer-ka sideebaad ugu dallacaysaa intaan horta ku dalacin aan intuso customer-radii noo abuurnaa bal isagana inuu wax soo galeen tira inay soo gasho halka marka customer center-ka halka ku qorantay baan tegayaa kaa markaan tago waxaa leeyahay markaa guriga koobaad guriga labaad guriga saddexaad bay abuurnaa marka halka saddexdii gurigii koobaad ee markaan wax ku waday halka 00 weeyaan wax inoo soo galay ma jiro laakiin estimation-kaasi maxaan idinku yidhi estimation-ku waa non posting transaction baa la idhaha isaga wax saameyn kuma leh laakiin iminkaan doonayaa inaan saameyntii markaa aragno waxaan leeyahay markaa si aan qofkii ugu dalaco waxaan tegayaa halka ay customer ku qorantahay mar labaad ku noqonayaa waxaan tegayaa halka ay ku qorantahay credit invoice waxaan doonayaa qofkii inaan invoice gareeyo oo idhaahdo lacagtii intaasay noqotay waa inaad soo dirtaa wixii guriga lagugu dhisay marka waxaan sameynayaa halkaasaan tegayaa customer job ay ku qorantay mar labaad waxaan ku dhufanayaa gurigii koowaad baan saa ula soo degayaa gurigii koowaad markaan saa ula soo ugu qabto isla markii wuxuu kuonayaa guriga estimationka date-kiisu intaay lacagtiisuna intaa tahay ayaa guriga ku taagan baa lagu yiri marka maxaad sameynaysaa okay baan siinayaa okay markaan siiyo
wuxuu ku yidhi halkan specify what to include on the invoice maxaa ku jiray ma dhammaan waxaa ku jiro dhan baad invoice qofka ku invoice garanaysaa mise create invoice for a percentage mise waxbaad ka reebaysaa ku marka saasaan ku daynaya halkaa okay baan siinayaa okay markaan siiyo dhammaan invoice-kii wuxuu soo gelinaya estimation-kii wixii aan sameeyey 18,991 halkaa markaa invoice-ka waxaan leeyahay invoice-ku laba maaha waa kow date-kii baad ka saxaysaa wixii oo dhan markaas ka wada saxdo waxaan leeyahay markaa save and close baan ku dhufanaya save and close markaan idhaahdo muxuu sameynayaa marka isbedel baan halkaa ka dareemay marka balance sheet-keeni markaa maxaa bedelay double construction company balance sheet-keedii waxaa inoogu soo darsamay waxa loo yaqaano account receivable oo ah 18,891 markaa intaas macnaheedu waa maxay qof la yidhaahdo guriga koowaad oo hadhow specificationkiisa arki doono ayaa waxaad ku leedahay lacagaa 18,891 isla markaa systemku wuxuu aqoonsanayaa net income buu intaaba u aqoonsanaya mar haddee dakhligaa tahay lacagtaas oo qofku ugu maqan marka waxaan leeyahay halkaas markaa reportkeeni markaa shaqadii ugu horeysay halkaasaynu ku arkaynaa waayahay marka waxaan doonayaa inaan tuso halkii customerkii halkii zero-ga ahaydna inuu bal iyadana wax isbedeleen iyadana waxaan leeyahay okay baan siinaya marka halkaa guriga koowaad isagana intaasa inoogu dalacan isagana waxay inoogu dalacan 18,800 iyo intaasaynu qofka ku leenahay marka maxaad sameynaysaa marka waxaad sameynaysaa oon ugu dambeyn doonaya inaan kusoo gabagabeeyo sano casharkii ugu dheeraaneen waxaan sameynayaa inaan qofkii u daabaco quotationkiisii ama estimationkiisii inaan u daabaco oon u geeyo oon idhahdo lacagtii soo dir oo kadibna lacagtii soo bixin gurigaan saa ku bilown marka waxaan tagay halkay ku qoran tahay credit statementgaasaad ku dhufanaysaa credit statementka markaad ku dhufato dheydka waad iska saxaysaa مثلا period halka statement periodka ku yidhi waad ka saaysaa adaa garanaya xilliga wixii u dallacayso marka waxaan leeyahay halka ay ku qoran tahay one customer ayaa doonaya inaan farta geliyo saa farta geliyo kadibna halka guriga koowaad la soo baxay guriga koowaad marka la soo baxo waxa kaloo saaraya tigta halka ay ku qoran tahay print statement by all halka dhahdo show invoice items details macnisi wixii aan alaabtii aan ku dalaco dhan uga muuqato meesha halkaasaan idin tigta saaraya marka waxaan leeyahay imanka printer ma haystaan iguma xidhna adiga haddii kuugu xidhay hal waa daabacanaysaa laakiin anu si aan u arko waxaan leeyahay preview halkay ku qorantay waa ku dhufanaya preview marka ku dhufto dabcan waa taa wuxuu ku yidhi tu halkay ku qorantay guriga koowaad weeyaan ay ku dalacantay alaabtii dhammaanteed waa kaa marka maxaad samaynaysaa hoostaan usoo horjiido waxaan leeyahay markaa qofkii markaa alaabtiisi wataa dhammaan wixii oo dhan marka maxaad samaynaysaa waraaqdaasa daabacanaysaa magacii shirkadda waxa kasoo ka muuqda dheydkii wixii oo dhan waa ka waxaad samaynaysaa markaa inaad qofkii u dalacdo oo aad u dirto qofkii toos u arka marka waayahay marka waxaan doonayaa casharkaas si aanay ugu dheeraanin inaan maanta halkan kusoo gabagabeeyo marka in yar dab ku yar noqdo waxaynu maanta abuurnay casharkeena 8aad waxaynu ku aragnay laba qodob aynu ku aragnay labada qodob waa maxay inaynu estimation samayno estimation oo ka abuurno customer-ka kadibna create estimation ku dhufanayno estimationka marka aanu qiimeyntii samayno waxaynu samaynay waynu enforce karayno qofkii baynu ku dalacnay waxaad tagaysaa marka halka create invoice ku qorantay markaad estimationka samayso qofkii toos ugu dalacaysaa toos markaad ugu dalacdo waxaad samaynaysaa inaad warqadiisii qaansheegta u dalacdo tiraa soo bixi lacagtii saasaan marka guriga kugu bilaabaya marka videogiisaan inoogu dheeraan casharka 8aad halkaasaan ku joojinayaa casharkan xigee 9aad la soco haddii aan la idhahdo shaqadii oo iyaduna halka inooga sii socon doonto haddii aan la idhahdo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu